waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada, wasiirka wasaaradda cadaaladda, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha, agaasimayaasha guud ee dhammaan wasaaradaha qaranka iyo hay'adaha dowladda, marti sharafta kale ay nagala soo qayb gashay, bahda saxaafadda. waxaan runtii idinka mahadnaqayaa inaad soo ajiibtaan kulankii aan idinku yeedhnay ee daaranaa inaynu maanta falanqeyno, wax iska weydiino, wax badan iska nidhaahno xeerka shaqaalaha dowladda oo runtii agaasimayaashu ay yihiin lafdhabarta socodsiinta iyo howl maalmeedka shaqo ee ka socda wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee qaranka. wasiirada runtii aad baan ugu mahadnaqayaa, waayo waxay ka mid yihiin saddexda wasiirba wasiirada maamula mashruuca dib u habeynta shaqaalaha. mashruucaasoo runtii muddo fara badan soo socday, maraaxil badanna soo qaatay, maraaxilkaa uu soo qaatay runtiina ku guuleystay waxyaabo fara badan oo la taaban karo. wasiiradaasi runtii siyaasadda ay ku hogaaminayaan dib u habeynta shaqaalaha mashruucaasi, agaasimayaasha guud qeyb weyn ayay ka yihiin, waana qeybta farsamo mashruuca oo ah halbowlaha runtii mashruucu ku socdo. mashruucaasoo dowladda somalilan ay wado, garwadeenna ay ka tahay hay-adda shaqaaluhu. maanta waxaa noo sharafa ka hay-ad shaqaale ahaan in xeerkii shaqaalaha dowladda 16 bishii labaad golaha baarlamanku ay ansixiyeen, madaxweynuhuna 1 March uu saxeexay dhaqangalkiisa, garyaqaanka guud ee qarankuna uu kusoo saaray faafitaankii rasmiga ahaa isla bisha March. inaynu wax badan iska weydiin doono doorka agaasimayaashu ay ku leeyihiin, waajibaadka agaasimayaasha looga baahan yahay, iyo sidoo kale waxyaabaha uu waajibinayo ku waajibinaya agaasimayaasha, oo runtii noqon doono session gaar ah marka furitaanku inoo dhammaado, oo aynu isku keliyeysan doono oo dood iyo falanqeyn iyo runtii waxyaabo fara badan oo aaraa kala duwan aynu halkan ku wadaagi doono. xeerkan runtii maraaxil fara badan buu soo maray. hay-adda shaqaaluhuna waxay ku shaqayn jirtay xeer hore oo xeerkani nasakhay. xeerkanina runtii wuxuu ka mid yahay xeerarkii ay la kowsadeen baarlamankan cusub, golaha wakiilada ee cusub, oo doodiisa iyo falanqeyntiisa aad in badan ka warhayseen. xeerkaasi oo marka hore guurtida kaga yimid baarlamankii cusbaa, golihii wakiilada cusbaa, golaha wakiiladuna ay ku sameeyeen isbedel aada u weyn oo runtii meelo fara badanna ay wax ku dareen, meelo fara badanna ay faafreeb ku sameeyeen. kadib markii ay ansixiyeen waxay u gudbiyeen golaha guurtiduna way ansixiyeen. madaxweynuhu markuu ku noqday xeerkaas, madaxweynuhu soo celiyay xeerka, waxaanu ku soo celiyay golaha wakiilada. laba sababood markaa madaxweynuhu xoogga saarayay soo celitaankaas, oo ahaa xeerkii hore ka soo noqday golaha guurtidu hal qodob oo keliyaata ayay taabteen. marka dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu sheegayaa labada gole markay xeer isku celinayaan in qodobada ay guurtidu soo celisay oo keliyaata wakiiladu ay dib u naaqashaan oo wax uga bedelaan, ama ay kaabaan, ama ay aragtidooda ku daraan. laakiin golihii cusbaa ee wakiiladu waa kuwii sameeyey isbedelka weyn ku sameeyey xeerka, taasi oo markaa noqotay mid aan ahayn sharci iyo nidaamkii markaa dastuurka aan waafaqsanayn. kadib markuu madaxweynuhu dib ugu soo celiyey, golaha wakiiladu waxay garwaaqsadeen in xeerkii hore mar kastana runtii annaga hay-adda shaqaalahana garab taagan qeyb weynna ka ah